السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمدا لله markuu ilaahay aadam iyo xaawo ka soo dejiyay cirka soona dejiyay dhulka ayna jireed kaga horeysay dhulka wuxuu ku soo diray malakul jibriil si uu ugu waxyoodo sidaas ayuu wuxuu ku noqday nabi aadam nabiga ugu horeeyay loo waxyooda si uu ugu noolaado dunida qaab nidaamsan aqoon ku dhisan oo cibaado leh. ilaahay wuxuu siiyay aadam iyo xaawo caruur far badan isku jiraan gabdho iyo wiilal. nabi aadam wuxuu ahaa macallinkii hagayay caruurtaas far badan ee isa dhalatay ilaa maxaa yeelay wuxuu si toos ilaahay ugu qaadanayay aqoonta uu ku hagi lahaa caruurtaas is dhalatay far badan si ay ugu toosnaadaan wadada toosan adduun iyo aakhiro. sidaas ayayna ku noolaayeen maadaama qoyska nabi aadam iyo xaawo iyo caruurtooda ay ku noolaayeen dunida ayna ahayd inay sadaqa baxsadaan markaasna ay jirin cid ay siiyaan sadaqada ilaan keliyooda ayaa ku noolaa dunida qoyskooda qura. waxaa ilaahay usoo diri jiray naar qaadata qofka laga aqbalay sadaqadiisa. maalin maalmaha kamid ah ayaa waxaa sadaqa baxsanaya labada is dhalatay nabi aadam dhalay. mid kamid ah ayaa sadaqadiisa la aqbalay midna lama aqbalin. halkaas ayaa ibliis fursad ka helay wuxuuna bilaabay inuu dhexgeliyo fitno. midka laga aqbalay sadaqadiisa ayaa wuxuu ku goondiyay inuu ka takhalusay walaalkiisa balse kii laga aqbalay ayaa ku jawaabay ilaahay wuxuu ka aqbalaa keliya dadka dhowrsan. haddaa isku dayda inaad idisho ani kuma dilayo balse waxaad ogaataa dembigayga dilida iyo dembigaaga hore inaad isku darsanayso sidaasaa ku mutaysanayso naarta. kadib waxaa waswaasiyey ibliis wuxuu ka takhalusay walaalkiisa markuu dilay ayuu wuxuu garan waayay siduu ka yeeli lahaa meydka walaalkiisa. ilaahay wuxuu usoo diray duke oo ku haga qaabka u duugi lahaa. wuxuu arkay duke duugaya duke kale markaasuu ka shalay wuxuu yidhi miyaan samayn waaya sida uu samaynayo dukahani si aan u aaso walaalkayga. sidaas ayuu ku aasay walaalkiisa balse muusan aasin dembigiisa. nabiga calaih salatu salaam wuxuu sheegay wiilkaas nabi aadam ee dilay walaalkiisa inuu dheef dembi ku leeyahay dembi kasta oo dhiig la daadiya si gardara ah maxaa yeelay wuxuu jideeyey wadada dilidda. muddo kadib waxaa batay caruurta uu dhalay nabi aadam caruurtay sii dhaleen ilaa ay gaareen sida uu sheegay imaam tabari 40,000 oo dad ah intuusan nabi aadam ka tagin dunida oo da'diisa lagu sheegay inay gaartay 1,000 sano. dadkaas dhammaantoodna waxay ku toosnaayeen wadada toosan ma jirin mid ka leexsan kulligooda waxay ku haganayeen wadadii uu nabi aadam ku hagay uu ka soo xigtay waxyiga alle ilaa maysan jirin dad kale oo fasaahsan ay ku daydaan. markuu dhintay nabi aadam wax walba waxay isku bedeleen si tartiib. markuu nabi aadam geeriyooday waxaa dhaxlay culimmadii iyo dadkii hagaagsanaa waxay ku sii socdeen wadadii nabi aadam waxay isku dayeen bulshadii inay hagaan ay sii toosiyaan. bulshada u horeysay ee nabi aadam waxay noolaayeen 10 qarni. qarniga waxaa u dhaqaanaa anaga 100 sano maadaama ummadeen ay noolaan karto 60 ilaa 100 sano waxaa yar inta 100 ka dhaafta. jiilka joogay xilliga nabi aadam wuxuu qofka noolaan jiray ku dhawaad 600 ilaa 1000 sano. taas darteed ayaa qarnigooda wuxuu noqonayaa 1000 sano. 10,000 sano ayay jireen. 10,000 sanana waxay ku toosnaayeen diinta toosan waxay ahaayeen muslimiin ummad keliya oo hal ah ayay ahaayeen. jiilba jiilka ka dambeeyay wuxuu dhaxlayay wadadii nabi aadam ay ka dhaxleen culimmadaasi dhaxshay nabi aadam. dadkaasi wanaagsan waxay saameyn ku yeesheen bulshada ayaa si fiican u qadarisay way weyneeyeen. muddo kadib way geeriyoodeen. markay geeriyoodeen ayaa waxay damceen bulshadii inay sawiraan sawiro magacyadooda ku qoran yahay. jiilka dambe ayaa u qurxiyay sheed waxay bilaabeen inay caabudaan. muddada markay dheeraatana bulshada way isbedeshaa sida ummaddaani bay isku bedeshay. sidaas oo kale ayay isku bedeshay bulshadii nooleed xilligii nabi aadam kadib muddada dheereed awgeed. magacyada dadka wanaagsanaa ayay sanamo ka dhigteen wadda suwaac yaquud yacuuq nasr. kadib ilaahay ayaa usoo diray rasuulkii ugu horeeyey kadib markuu geeriyooday nebigii u horeeyey 10,000 sano kadib. nebi waa loo waxyoodaa keliya dadkan wanaag ayuu ku baraarujiyaa balse rasuulka asigoo nebi ah oo loo waxyoodo oo malakul jibriil la kulmo ayaa waxaa la faray inuu dadka gaarsiiyo diinta waxaana la siiyaa sharci cusub iyo axkaam cusub. bulshadaan kusoo nooleed 10 qarni ayaa waxaa loo soo diray rasuulkii u horeeyey nebi nuux. sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wasalaamu calaykum.